wasaaraddu waxay maxkamadda sare ee waddanka u qoratay arji ay ka codsanayso social media in la xakameeyo wakhtiga imtixaanka haddii baahi timaado waa hadday baahi timaado waa hadday baahi timaado kelimaddu waa hadday baahi timaado maxkamadda xukunkaas waa noo riday mahad ha ka gaarto maxkamadda iyo garyaqaanka guud oo dowladda ku matalay dacwadaas hadda wasaaraddu waxay haysataa awood saacad kasto social media aan ku joojin karno maanta ma la joojin maxaa yeele baahida ma jirto shaqadii kale oo adkeedoon qabannay ayaa noo shaqaysa marka sabab loo joojiyo ma jirto laakiin haddii khatar aan aragno ilaahay ha naga haayo waa la joojinaya waxaa nooga muhiimsan in ardada meeshaas joogta ay mar labaad niyad jabaan khatara wuxuu noqon karaa fiiri wax kasta oo la sameeyo dadaal kasta oo la sameeyo aakhirka wuxuu ku ururayaa gacan aamina inay hayso malaa'ig ma haynayso bini aadina haynaayo waxa si kastoo loo xifdiyo si kastoo loo dadaalo hadda bal fiiri 104 halana fashiliyo yacni dadaalkaas meeshaan u jirsanay waad arkaysaa laakiin hadday dhacdo in haddana sidoo kale aan fashil nagu dhaco waa joojinaynaa laakiin maba dhacaayo markaan waxaa weeye qof walba saakay waxaan la hadlay magaalooyinka oo ka socda imtixaanka oo dhan kulligood waa fiicanaa u baryey wasiir ku-xigeenka wuxuu jiraa magaalada ugu badan marka xamar laga baxo ardayda wasiir dawlihii wuxuu jiraa magaalada ku sii xigto oo ugu ardayda badan baarlamaanka guddiga bulshada xubnahooda waddanka oo dhan aa lagu baahiyey oy goobjoogayaalka ahaanaya marka insha allahu fashil ma dhacaayo taariikh cusub oon qish lahayn oo ardaga waxa uu shaqaystay oo helaayo ayaa soomaaliya u bilaabatay guulaan u wada rajaynaya ardada soomaaliya oo dhan waa mahadsantihiin